dalka la yiraahdo Russia waxa ayaguna ay wali ku daabulayaan sida ay sheegayso warbaahinta caalamka gaar ahaan caalam islaami warbaahinta Turkiga iyo warbaahinta Liibiya qaar kamid ah warbaahinta Carbeed ay tabinayaan waxa la sheegay in diyaarado cargo military sida iyo qalab military ugu badan ay wali qadaadhigayaan isla markaana daabulayaan hubkii ugu cusla magaalada istaraatiijiga ah ee sirta ee badda Mediterranean-ka qaybteeda bari ku teedsan sidoo kale laga soo xigtay afyeenka ciidanka isku xidhka ee magaalooyinka ama hawlgalka loo yaqaan magaalooyinka sirta Jafra Joint Operation Unit General Abdullah Dirah ayaa waxa uu sheegay in dawladda dalka Russia ay sii wado kharbadaada iyo ku xadgudubka madaxbannaanida dalka iyadoo maleeshiyaadka Khalifa Haftar ee baxsadka gaarsiinaysa agabkii military ee ugu badnaa waxa halkaas ka jiray isku dagaal oo ugu daran abid magaalada sirta ayaa noqotay magaalo nasiib daran sanadkii 2015 bishii May waxa gacanta ku dhigay kooxda maleeshiyaadka Daesh kadibna waxa ka furtay muddo kadib oo kala wareegay adugu sanad kadib bishii June 2016 ciidamo taageersan dawladda la aqoonsan yahay China kuwaas oo ka buriyay kadibna bishii January ee sanadkan 2020 ayaa ciidanka Haftar iyaguna ay sahab Soomaaliya u qabsadeen sidoo kale waxay qabsadeen saldhigga military ee Qardaadiya la yiraahdo ee magaalada sirta duleedkeeda taasoo ka dhigtay in ay wax dhan dumiyaan dawladda kooxda markaasi Haftar haatan waxa la sheegay diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo diyaarado kale ay halkaas warwareegayaan diyaaradaha cargo ayaa la sheegay inay sidaan qalab military oo aad u fara badan oo ka mid yihiin qalabka inta garabka laga tuuro burburiya gawaadhida gaashaaman iyo kuwa kale ee markaas soo rida diyaaradaha tanina waxay ka dhigan tahay ayaa leeyahay Ruushka iyo ciidamo calooshood u shaqaystayaal oo taageersan yahay doonayaan inay lug ugu lahaadaan laamaha saliidda iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalkaasi dalka waxa sidoo kale lug ku leh dagaaladiisa dalalka Turkiga Masar isku tagay Imaaraadka Carabta Faransiiska iyo waliba dawladda Qatar oo iyaduna dhinaca dawladda China taageerta hagaag daawashana qiimaha leh wararka waxa dhinaca dawladda caalamka oo dhan Israa'iil waxa ay sheegtay inay suurtagal tahay dagaal ayaga iyo Xisbullah dhexmara oo buuxa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Benny Gantz oo baarlamaanka Israa'iil ka horreeyay ayaa ku tilmaamay in ay jirto wuxuu ku sifeeyay khatar ay ka dhalan doonto ayuu yiri nasiib xumo aad u weyn ama ay ka dhalan karto wuxuu ku sifeeyay cawaaqib xumadii ugu darnay abid taasoo ah dagaal si habsami leh u dhexmara ayuu yiri kooxda Lebanon ka howlgashay Xisbullah la yiraahdo iyo militariga Israa'iil ayuu yiri kama joogsan doono ayuu yiri in ay suuragal noqoto dagaal kale oo naga furma dhinaca ayuu yiri xuduudda Lebanon tanuna waxay noqon kartaa ayuu yiri suurtagalnimo aad iyo aad u soo dhow kadib markii aan aragnay ayuu yiri hadallada tantaansiga leh ee ka soo yeeray ayuu yiri Xasan Nasrallah iyo kooxdiisa oo u darban mar walba doonayay inay weerar nala galaan wargeyska warbaahinta la yiraahdo Israel Broadcasting Company Makan ayaa waxay ku soo waramaysaa in uu Gantz sheegay ama wuxuu ka digayaa ay tahay ayadoo Iran la sheegay inay dhawaanihii ugu dambeeyay oo dhan ay ku riixaysay kooxda Xisbullah inay dagaal rasmi ah la galaan Israa'iil taasoo ay doonayaan in ay pressure ama ay ku saaraan ayaa la yiri cadaadis aad u daran Mareykanka iyo dalalka kale si loogu soo joogsado loona arko awoodda isballaarinta gobolka ee Iran ay ku leedahay dawladda Jarmalka waxa ay sheegtay inay ka yaabtay handadaad iyo hanjabaad ka timid dawladda Mareykanka oo ku saabsan in laga yaabo in dekad kamid ah dekadaha dalka iyo shirkadaheeda waaweyn ee dalka Jarmalka ay cunaqabatayn saaraan dawladda Mareykanka arintan ayaa waxay ka soo duushay ayaa la sheegay dawladda Mareykanka gaar ahaan xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo dhigiisa dalkaasi Heiko Maas ayaa sheegay in khadka telefoonka ay xalay ku wada hadleen labada wasiir kadibna ay ka wada hadleen hadalkii ugu dambeeyay ee ahaa iyadoo oo Mareykanku ka careysan yahay tuumbo qaad gaaska dabiiciga oo badda Baltic soo dhex mari doonta oo keeni doonta shidaal gaaska dabiiciga dalkaasi Jarmalka ay ka caroodeen dawladda Mareykanka si daraadeed Mareykanku diyaar u yihiin in cunaqabatayn saara 4 senator oo Mareykan ayaa dawladda dalka Mareykanka ka dalbaday in la saaro dekada weyn ee magaalada Jarmalka ee la yiraahdo Sassnitz waxayna sheegeen iyo dekada waliba leedahay Murkan Port labadaba in ay electricity cunaqabatayn warqad ay direen afar kamid ah senatarada dalka Mareykanka oo ay kamid yihiin Ted Cruz iyo Tom Cotton iyo ninka kale leedahay Ron Johnson ayaa dhabaantood waxay ka digeen in tallaabadaas ay muhiim noqon doonto waxayna sheegeen in arrintan ay tahay walaaci ugu weyn ee dawladda Mareykanka ka soo food saara dalka Ruushka oo qaatay suuqyada waaweyn ee qaaradda Yurub marka ay noqoto dhinaca gas dabiiciga barnaamijka loo bixiyay The Nord Stream 2 pipeline ayaa waxa uu noqday mashruuc weyn iyadoo mashruucii labaad uu yahay dawladda dalkaasi wuxuu wasiirka arrimaha dibadda ayaa yiri maanta waxaan kala hadlay arrinta Mr Pompeo waxaana u sheegay sidaan ula fajacay hanjabaadda soo duushay waa markii ugu horeysay Mareykanku uu dal weyn oo kamid ah dalalka reer Yurub oo ay ku wada jiraan isla markaana ay leeyihiin qadiyad waaweyn
ay ugu hanjabaan arrintaasi laakiin Jarmalka oo mar ah dal la holi waayay ayaa barihii ugu dambeeyay oo dhan noqday dal marna la yiraahdo waa lagu ilaalinayaa marna loo hanjabo cagajuleen loo diro qorshahan cusub ee loo yaqaan Nord Stream 2 waxa ku baxaya $11 bilyan oo dollarka Mareykanka taasoo looga goleeyahay in tumbooyin si toos ah uga yimaada Russia soo dhaxmara badda Baltic ay toos u siiyaan shidaalka dalka Jarmalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la soo diristay arrin la yaab leh isagoo madaxweynuhu shir jaraa'id oo toos ah ayaa warfadiyadana ay la fadhiyaan ayaa waxa si degdeg ah madaxweynaha ugu yimid kooxda amniga madaxweynaha sugta mar walba ee Secret Service ka loo yaqaan Secret Service-ku waa hay'adda madaxweynaha Mareykanka ilaalisa amnigiisa khaas ahaan waxaana madaxweynaha markaa warfadiyada la hadlayay toosna ay boqolaal warfadiyada u taagnaayeen ayaa waxa uu yimid mid ka mid ah saraakiisha wuxuuna ku amray madaxweynaha in uu ka soo dego meesha saas ayuu u sheegay waayo amniga madaxweynaha marka ay timaado ama wax degdeg ah marka ay yimaadaan lama aba yeelo madaxweynaha waxaana loo sheegay oo lagu yiri mudane waxaan u baahannahay in aad soo degto aad hoos u soo degto ama aynu meesha ka baxno 9 daqiiqo ayaa markii madaxweynuhu degay ayaa dhigta wax loogu sheegay